السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي ويني واني سلامي meel kasta adduunka joogtaan bashbash iyo barwaaqo ku noolaada. waxaan rabaa inaan isla dhageysano Esther Korlibax iyo qadar yare oo arrimahoodii oo xasaasiya asaga iyo gabar kale ka hadlaya. xuquuq ayaan ku leeyahay intaasna wax la soo jiray xuquuqdii halisi lacag kun door halisi u yiri aan soo bilaawo kadib abay markuu waxaa dhacday markii YouTube-kii lacag ayuu dhaliyay shaqo ayuu sameeyay lacag markuu horta wiilkan qadar maalintan Esther aan ka arkiyay YouTube-ka aan ku arkiyay wiilkaneeto uu la duubiyay qadar yare asagoo la duubiyo maalinta jimcaha cuntada la karinayo oo cuntada alaabta wax uu ka keenayo uu ag fariisanayo ani walaalkeed baan u malayn jiray sidoo wax uu la duubiyo iyo sidoo uu la wado walaalkeedaan u malayn jiray. Nairobi markay soo tageenna ilaa gurigoodan tagay marka dad isku faraxsan bay ahaayeen. shaydaan baa dhexgalay, shaydaanka soo dhexgalayna dee allaha ka qabto. gurigoodan tagay, Nairobi baan tagay. marka balaan isla dhageysano waxaan ku dari karana waan ku daraya insha allah. waxay tiri Nairobi aan ku guuro aan ku degaan rabaa qadarow lacagta sida saas buu leeyahay bankiga ha ku dhacdo hadhow YouTube-kan ka baxsanina waan gartay lacag $4,000 ay ahayd $1,000 maxaa la siiyey ninkii ciida ay kala tageen wuxuu dhahay YouTube xuquuq ayaan ku leeyahay intaasna wax la soo jiray xuquuqdii halisi lacag $1,000 halisi u yiri Ibrahim soo ilmo bayso soo looma dhalin maya wuxuu ilmo loo dhan Ibraahimkii ay kala tageen ay gabadha u dhashay YouTube-kii $4,000 baa ka soo baxay. Ibraahimkii ay kala tageen bay $1,000 siisay. marka Esther Korlibax waxaa la rabay markii Ibraahim kuka shilin $1,000 siinaysay in wiilkana $1,000 siiso. taas ayaa sharaf ahayd. waxay ku heshiiyeen ma aqaaneen balansiin dhageysano. wiilkan hadda sidoo sheegayo shilin ima siinin buu leeyahay. waxay tahay ilaa soo loo dhalay haddana wuxuu yiri $1,000 u baahan hal isiiyo maadaama aan kala tagin wanaag ahaan ayuu ku qaatay kadib xasiiso kadib lacag $3,000 bankiga aan ku haayay YouTube-ka waa soo baxnay Gaarisa imaanay kadib waxaan imaanay halka iyo Nairobi marka baayo kadib gurigii alaabtii lacagta waa isticmaashay marka maadaama dad aan wada socon aan ahayn wixii lacagtina waxaa lagu gaday waxay tahay wax anaga meel aan ku tagayna marka kama hadin Nairobi waa qarash badan tahay. waa arkay guriga iyo alaab iyo waxa daa gadid $10,000 baaba kugu bixi. waa qarash badan tahay. inta marka waxay bilaabay marka ani bahdisho in aniga halije si xun ila dhaqmato in ay nishar qaxooti naga soo raacay dadkina igu bahdisho inay intaad iyasto in ay tiraado waxa dhigi jiray TikTok-ina ma duubisid YouTube-kina ma duubisid adigu markaad iyada waxba u duubtay TikTok intaad heedada ka furato abay ila gal wiilkan wuxuu yiri ayadan caawinayay asagana wuxuu qaaday mooji wax qaaday waxa fiican qof marka caawisid ama wax la duubtay sidoo sheegayay waa sidoo sheegay adigana kaaga furo kaale ag fariiso dheh aan isla duubno marna kan gala marna kan saasa ku caawinayeen way ka hoos baxday kolay baaye ana YouTube-ka ila gal maxaa ku diiday inaad tiraa waxaan irsaaqada deymaha ka timaado in la isku diidaayo oo wajiga la isku bedelayo xoolaha waa xoolo shaydaan wallahi waa rug gabadhaneeta say u sheegtay waana gabar yar wiilka isla soo fariisteen sida uu hadashay waa run. YouTube-ka shey ma ku fiicna. xoolaan waa xoolo jinni markuu sida kugu soo baxo waaba xoolo shaydaanba. waxay tiri xoolaha markuu soo baxay dawaaka isku disheen ku kala boodeen. wixii lagu kala boodayna ilaahay baa oge. marka YouTube-ka sidiisa ba lacagtiisa ba waaba shar. dad badan baa isku dilay oo shay aha been ma aha aan garanayo oo shay aha dagaalamay lacagtii isku dilay ay been ma aha taas. إلى أنت كبر أنت مات محاولة أود ويسوي
dhiganayay garab aan ka dhiganay mar waxay dhijta qadarow tiktokaaga waa wixii ka soo baxo walaalkii aad tahay ilmahan ku korsanaya ilmaha ili korinaysaa waxaan diyaar u ahay ina aniga adiga aan kuwada xamaano aan kuwada cunno mifanta baa guri kireed aan kuwada bixino laakiin jasta adiga maradaada iyo masruufkaagii iyo noloshaadii way tafaariq qaadayso oo si walaaltinimaa waa iskula joogteen waa isla cunayseen waa isla cabayseen bilaa maya bidacaadanka siduu sheegayo wiilkan hadday run tahay aniga Esther ma wareysanine siduu wiilkan sheegayo hadday run tahay asagoo cuntadii kula cunayo kiradii alla bixinaysa ba haddana waxoogaa la iska siiyaa 4,000 markay soo baxdo 1,000 ama 500 yacni waa nin raga jeebkiisa si ugu gurto jeebkiisa magaalada uu kula tago waxoogaa la iska siiyaa waalid baa ka dambeeya hooyaa ka dambaysa dad ehel baa ka dambeeya marka cuntada iyo cuntadayda waxayga cun ninkan kolayba hooyaa ka dambaysa wax baa ka dambaysa waa siduu sheegaya hadday run tahay waa bidacaadan hadday been tahay de waka laakiin siduu sheegaya hadday run tahay Esther sidaas uu ku qaldan tahay waa bidacada way qaldami kartaa bidacaadan weeye suu sheegaya hadday run tahay waa qalad wuxuu dhashtay lacagtu markay soo dhacday soo maha lacagta ma ahana baayo aan ku fahansiiyo marka bahdilaad waxay bilaabatay markay lacagti badatay oo $4,000 la soo qaaday ugu jir bahdilaada waxay bilaabatay lacagtii markii youtube laga bixiyey ay isniirow imaanay sariirtii iyo alaabihii dhan la soo gaday wixii dhan la soo gaday mi fahanta baayo waaba la soo gaday anaa ku daawaday adoo saliidaha joogtiin okay waa la soo gaday markaan la keenay waxaan isdiyaalay ninkii lahaa muhaa ayaa isku dhacnay adi iyo muhaaha isku dhacdeen waxaan isku dhacnay gabar walaasheed habeen xalfad ay ka tegaysay oo ay bixaysay sootiinka ahayd ayaan isku dhacnay adina iyo gabar walaasheed isku dhacdeen ma walaasheed iida ka weyn ayaa bixaysay wuxuu socotay Mareykan waa gabadha bixisoo baaybaada loo sameynaayo waa la socdaa okay ha xalfadii markii ana ay imaaday muhaa wuxuu bilaabay hadal qadan uu dhaho kadib muhaa ani markii Esther hees meesha laga soo qaaday oo familkii macallin gabadha bixis lagu amaanayo ayaa waxay sameeyeen hees ayaa laga soo tagay adi magacaaga laga tagay ha gabadha meesha fadhiyo waxay dhaheen qadaro waxaan ramay dhaheen ina adiga kula hadalno maxaa heestan laga soo tagay muhiimada heestan laga soo tagay maxay tahay aniga waan xumaaday gabadha walaashiya u yeeray waxaan dhahay abaay maxay tahay heesta soo tagtay maxay tahay yar la'aanta waxaa laga yaabaa inay ku hilmaantay haddana mashquulsaneed looma qabto horta hees haddana looma qaban inta la qabto magacahayna iyadoo anoo baraanburkii arooskii maamulkiisi haayay magacayga laga tegi karaa taas horta taasaan kaa jaalbixina marka waxay tiri qadaroo dhib ma lahan hees micno ma lahan dhib mala walaalkii maca waan kaa reergelay tiri marka okay hadday muhaa soo istay wuxuu yidhi maxaa asaga ka waalaya anuu sii jeedo halkaas meesha dabarkuu feeriga dhufta marka saa ii gacan kuftay okay muhaa bay isku dhaceen wiilka muhaa bay isku dhaceen dhibka halkaas ka yimid waan soo jeestay markaan soo jeestay ani ninkii igama awood badneed xiliyan fuula waan la diyaaray dhulkaan la galay kadib waxay tiri marka yaa gardanaa meesha marka meel luqeed yaa gardanaa imaada marka yaa gacanta bilaabeed marka ma fahanteed kadib waxay tiri qaaraa gardanaa gacanta bilaabay ma fahanta baayo okay ka gudu marka Esther marka Esther waxay tiri qadar wuxuu yiri feer buu halka muhaa igaga dhuftay muhaaba ii gacan horeeyay buu yiri markuu igu dhuftay Esther waxay tiri qadar baa gacan horeeyay halka yacni way muhaaba u hiilisay amal weeye ilaahay kugu ogyahay ayo in la isku diidaayo oo wajiga la isku bedelaayo xoolaha waa xoolo anta bilaabeed marka ma fahanteed waay kadib aydiig waxay dhaha anaa haya waxaan kaaroo tiri gmailkayga iyo passwordkayga inay ku soo wareejiso ma fahanteed
xadir qaara gardana gacanta bilaabay ma faanta baayo okay ka gudu marka Easter marka bahdilaad halkaas iga bilaawday lacagta YouTube-kina way iga sii bilaawdo oo meeshii waxay bilaabatay mar haddii gabadha dhulkii waxa dhigtay gacmaha dhulka ay dhigtay wuxuu yiri xaggi lacagtana way igu bahdishay waxbana imay garan yani saasuu ka wadaa markaan guriga imaadayna wiilkii markaan dagaalamayna wayna ay bahdishay waxay tiri qadar baa gardaran adi bahdilaad badan baan ku arkay waa siduu leeyahay sanagtay waxay bilaawday aniga inay i bahdisho iga saarato gurigeeda inay iga saarato banaanka igeyso adiga guriga ka baxay ku tiri waxay igu tiri habeen 9 saac habeenimo bar habeenimo oo roobka ayo waxaa dhihi jiray ay xidr qadar oo familkina aad waan ka soo tagay 9 saac habeenimo ka soo wiil dhalinyaro oo maali kadib subaxii waxaan rabay 9 saac habeenimo oo roob dacayo ayay tiri ka bax waa siduu yiri ilaahay baa naga og anaka hadalkiisii unbaan hadda dhagaysanaynaa waxaa la yiri Soomaali waxay tiri nin calooshiisa taala hadduu ku yimid oo mindi caloosha inta laga geliyo caloosha saa uga soo lulato hadduu ku imaado de ilaa kii kale aragtid ha u garnaqin Soomaali wallahi ciyaar ma aha waxaa la yiri Soomaali been way sheegtaa been ma mahado ilaa kii kale aragtid ha u garnaqin kiyo caloosha saa u lalaado ku imaado waxa laga yaabaa kii kale waa dhintay inuu dhintayba asagoo meeyda inuu ka soo tagay baa laga yaabaa marka qadar un baan dhageysanaynaa Easterna waan dhageysanaynaa mar baan dhageysanaynaa insha Allah marka yaa loo garqaadin baa la yiri ilaa labadooda dhan la dhageysto ina qaataan marka sharci ID ani Allah ma faanta baayo sharci ID-geegi markii aan boorsada ka fidiyo waan ka waayay ID-ga ayaan waayay ID-ga markaan waayay kadib ID-ga waxay dhacnaa hayaan waxaan ka roo tiri email-kayga iyo password-kayga ay u soo wareejiso kadibna aniga aan ku siiyo ID-ga loo bireeyay haysatay kadib Gmail-kii waxaan ku wareejiyay ilaahay iga saraa ilaahnu i maqlaayay baagiga dhalka ma ugu soo tagay hal fanaanad anoo qow guriga ugu soo tagay ID-gina waan ka soo qaatay dhibkaasi ii geysatay dhibka markii ii geysatay inta imaaday waxaa dhacday in haddana aniga isii bahdisho haddana isii waxa la jira dhibaato isii geysto anoo banaanka joogaa guriga banaanka joogo 9 saac habeenimo oo roob dacayo iska daa qof walaalka ku soo gacan qabtay soo sheegay waa hadday run tahay gaal baaba waqtiga la bixin karin 9 saac habeenimo roobna dacayo gaal baaba la bixin karin waa hadday run tahay ereygiisa gaalka ayaa la bixin karin iska daa wiil walaalka kadib arrintii markay isaas ahayd oo iidana dan xaajiga marka waxay dhacday soo wacday habeen hadda qadar oo dhigay tiri YouTube kana iskale tiri TikTok kana iskale tiri maanta adaa banaanka taagan tiri faant hadday dan ku waxay tiri lugay hooste miimaanay YouTube meel duubay tirniyo kadib ani waxaan dhahay taas bahdilaad ayaan ka xiga dhimasho ayaan ka xiga qolinaga nahay magaalada dhinac ka galaya waan gartay kadib arrintii ayaan ka soo xaday marka waa tii aniga gabadhaan dhahay Soomaali Maxamed dhibaatada ii geystay xumaantaasi ii geystay dhibkaasi ii geystay waan gartay muuqaalkiiga waa daawatay anuu aflagaadiina cayni markay Soomaaliya may kuma arag iyada waan ku iri qadar oo qeena ma aragan ku iri okay aan ka dhaxgala marka kadib markii muuqaalkii aan ka soo hadlay maceeb miya abaayo qos abaan ku weydiin fardos ina xanuunkiga ka hadlo iyo dhibkii iyo bahdilaadkii ugu samaysay iyo sidii macnaha ugu soo shaqeeyay oo ugu soo gaar baxay iyo sidii shalaf wuxuu ugu dabatay maceeb marka kadib waxay samaysay YouTube soo fidisay waxay tiri khadar aniga umul ayuu idmacay tiri marka labana waxay tiri ilmahayga derbi ayuu saksi ugu qorqoray ilaaha kugu dhaari 4 sano ilaaha iga saraya waa xilli dambe waa habeenimo inta ilaaha nabad iga makiciyo Easter damac iska daayay
anigu waxaana isbitaal qaxooti markii ku dhanaysa 3 habeen 3 maalin saa u gurtaagnaay ninkeedana muu taagnin wiilkeeda dhashayna muu taagnin anaa ku taagnaa because maadaama waxaa lidin qof isbitaal ku jiro hooyada iyo ama sidoo isbitaal kala Soomaali garan anaa gurtaagnaa oo bishaari u soo qaaday ka gudub waxay tii qadar damac ayuu iga galay tiri taasina xaka yaabin taasina wax dhacay ama adduunka maqlay la maqla ma aanu fahanti الله بسم الله الرحمن الرحيم بل انت عن كوجوجي ووحلا الغيابو بسم الله الرحمن صوماليا شيء لا تسبسكرايب كسارة afkii baa juqda gabay sii sheegaray khayr baan rajeynaya shay laagta subscribe-ka gacanta dhaqdhaqaajiya sida ayo kulanti dambe waxiisa badbadan la ilaahay hadda siduu sheegayay maxamed siduu imaaday weeye muxumooha ma la dhawiilkaas ayaa isdagaalamay balaayo baa halka ka bilaabatay marna xagga lacagtu yiri marka qof kasta risiqiisa nin rag baa tahay haday maqashay qadar nin rag baa tahay magaaladana weynta dhinaca ka gal Esther Korlibah labada qof bidaadan weeye qasab qof unba qaldan waa bidaadan qof malaa'iga ma jiro ama Esther ba qaldami karta ama wiilkan hadda qof qalad ansaarina ma labadooda mid unba qaldan kii qaldanna ilaahay baa og kii is og de asaga is oge de walaalka kale afis iyo saamax warayso qofkii qaldan asaga is oge Soomaaliya si sheegaray shay laagta subscribe-ka waa dhankiina sida iyo kulanta dambe oo xiiso badan leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh